heshiiskii ka dhacay waxaa lagu tilmaamay is-afgarad ee ka dhacay Addis Ababa ayuu ahaa. horeyna waan uga hadalnay dadka Soomaaliyeedna aad iyo aad uga hadleen dhalinyarada Soomaaliyeed waliba waa ku hambalyeynaya dareenka ay ka muujiyeen arrintaas meel kastoo ay joogaan, hadday koonfur joogaan, hadday waqooyi joogaan, hadday galbeed jiraan iyo haddii ay xuduudaha dalka dibaddiisa jiraanba magaca Soomaalinimada iyo Soomaalida in maxaan ku dhahaa arrintaas looga wada dhiidhiyey waa noo wada muuqato, waa wada garanayna. waxaan rabaa kaliya inaan caddeeyo dadka Soomaaliyeed ee waqooyiga Soomaaliya degan aad iyo aad ayaan ugu kalsoonaa inaanay qabin dhulka Soomaaliya qaybo ka mid ah in la bixiyo. horta waxaan rabaa waxa oo sheekada is-afgaradkaas uu ku saleeyay waa dhul la bixiyey, waxa ka sokeeyo dhan waa sifooyin gadaal laga raaciyo wax lagu khafiifiyo la rabo, waa ijaarana iyo waa ganacsi iyo waa magaciisi iyo waa wax ka jira Ilaahay abuur ma jiraan. dhul lama kireeyo, dadku waa ka jira laakiin dhul lagama heshiyo. 20 kiiloomitir xeebta badda cas ka bilaabatay xuduudda Itoobiya xuduud beenaadda Itoobiya gasha waa la kireeyey muxuu ahaay meel ay mandiq ka tahay ama macquul ka tahay ma jirto. dadka waqooyi Soomaaliya degan arrintaas inaan raalli ka ahayn waana nala soo hadlaan dadkooda waxgaradka iyo mas'uuliyiintooda dhinac bulsho iyo dhinac siyaasadba. shacabkana waaban aragnay oo jidadka waa kuwa soo baxay oo taagan oo hadlayaba. waxaan rabnaa markaa war dhulka Soomaaliya geyiga aan leenahay shalay kuwii naga horreeyana ma bixi karin mana bixin, annaguna ma bixi karno, kuwa naga dambeeyana ma bixi karaan. cid bixi karto oo xaq u leh 1 mitir oo dhulka Soomaaliya inay bixisaa ma jirto. in laga hadlaaba dembi aba bixintiisa iska daayay in laga hadlo nafsadeedaaba muxuu ahaa yaa dembi ah oo suurtagal ahayn. marka waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inaan u sheego dhulkaasi nagama baxo nagamana bixi karo hadii la yiraahdo. waxaan rabaa inaan gooni u soo jeesto marka dowladda Itoobiya marar badanna waa sheegnay waan ku celcelinaynaa ismaanaan dooran inaan daris ahaan, annaga iyo ayaga isma dooran inaan daris ahaan. intii aan dariska ahayn oo Allah uu nagu wada abuuray geeskan Afrikane taariikhdeennii waa la garanayaa iyo wixiina soo dhex maray. qarniga 21aad waxaan isla haynay waxaasi beejkaas waa la dugay. Itoobiya Soomaaliya ayadoo intaan ka taag daran, ayadoo isticmaar haysto, ayadoon xor ahayn oo aan dowlad ahayn ayay dalkan qaadan weyday. isku dayday markii ugu horreysay maaha isku daygaan. taariikhda waa la garanayaa ilaa maxaa badda cas iyo meel u dhow maaha banaadir iyo dhulkan inay Itoobiya taariikh boqortooyinkii hore soo aadeen oo meeshaan balcad agteeda meel ah ciidamadeedu lagu jibiyo lagu celiyo dib u noqdeen baday raadinayeen. dhul kuma yara Itoobiya dhul waa qabtaa. hadda badda dadkan ilaaha dhulka kala dejiyey sida u kala abuuray fursadaha kala siiyey adduunyadana in badan oo kamid ah bad ma laha, waana wada dhaqantaa, waana wada nooshahay, waana horumartay. dal bad ma laha daraadiisu u hormari waayay la yiraahdo adduunka ma jiro. sheekada Itoobiya ma hormari karto bad la'aan wax jira ma ahan. adduunyada bad ma wada leh, waana nooshahay, waana horumartaa, waana socotaa. waxa wax ugu sii cajiib badan waxay tahay shirkadda Ethiopia Airlines waxay ka siinayna dhulkana waa qaadanaynaa. war dhul iyo maxaan ku raadayay shirkad ganacsigeed meeqa shirkad diyaaradeeda adduunka hore u soo jirtay oo dawladaha waaweyn ay lahaayeen oo baaba'ay oo kala tagay oo khasaaray oo maxaan ku raadayay xirmay. dhul khasaaray wali yaa arkay ama dhul guuray oo meeshuu ku yiilay inta ka guuray meel kala tagay ama khasaaray oo dhulkan waa faa'iido laga waayo waa lagu khasaaray dhulkii la leeyahay. dhulku waa dhaxaltooyo ab iyo aabbe iyo awoow laga soo gaaray, waana sii ahaanayaa. annagana waana laga sii shalan dhaxalnay, waana laga dhaxlayaa kuwa kasii dambeyn sidaas oo kale looga dhaxlayaa. walaalayaal, dadka walaalaha Soomaaliyeed ee waqooyiga Soomaaliya degan ee waxgaradka indheer garadka awlibo dhul Soomaali leedahay Ethiopian Airlines walaa Ethiopian Telecom walaa Ethiopian maxaan ku raadayay gerd midna laguma bedeli karo. dhammaantood la isku daray laguma bedeli karo. dhulka annaga iskale dawladda Ethiopia ee dariska annahay shalan waa ugu baaqnay, mar kale waa ugu baaqaynaa.
muuse biixi dhul idinma sii karo mid kaloo ka dambeeyana idinma sii karo mid ka horreeyana idinma soo siin waqti badan yoonu idinkaga dhumin waxaas taariikh hore oo qadiim ah oo dhiig badan iyo maxaan ku radaa xumaan badan iyo colaad badan ay nagu soo dhex martay waayo dhulkan yaanan sii wadin waxa taariikhdaas yaanan sii wadin aan joojino qarniga 21aad dhul lama kala boobi karo waliba annagoo Afrika ama kala boobi karno hadda ka horna dhulka Soomaaliya sidaan oo kale way soo martay duruufo sidaan mawaaqiftii aan ka qaadanay meeshan ka taagnay waa la ogyahay maantana meeshii iyo meel ka sii xageysaan ka taaganahay mitir dhulka Soomaaliya taaka dhulka Soomaaliya kamid ah inay baxda ma ogol raali kamid aniga Xasan Sheekh Maxamuud la yiraahdo taariikh alle waa la yaqaan dhul Soomaaliyeed kama gorgortamo xukun kuma doorto wax kuma doorso waxa ku doorsanay ma jiraan horana uga maana soo gorgortamin haddana ka gorgortamin kuwa naga dambeeyay